bismillahir rahmanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu dooroon warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaana kamid ah shirka caasimadaha horumaray oo ka dhacay magaalada Tokyo ayaa lagu soo bandhigay horumarka ay ku tilaabsatay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kala hadlay hay'adda dhinaca horumarinta u qaabilsan dalka Japan inay Muqdisho ka saacidaan dhismaha wadooyinka iyo bulaacadaha maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ka wada hadlay sida doorasho qof iyo cod ay kaga dhici karto degmooyinka gobolka Banaadir marka la gaaro xilliga doorashada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir ayaa soo xiray tartan loo qabtay dhalinyarada gobolka Banaadir kaasi oo lagu xusayay toddobaadka dhalinyarada Soomaaliyeed shirka siyaasadda tubaha dawladda hoose ee Xamar ayaa toddobaadkan waxaa looga hadlay qabyo qoraalka xeerka maareynta qashinka intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warka warbaahinta codka gobolka Banaadir iminkana warkaasi oo faahfaahsan shirka caasimadaha horumaray oo ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa lagu soo bandhigay horumarka ay ku tilaabsatay magaalada Muqdisho haddaba shirkaas waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu uu kulan la qaatay hay'adda dhinaca horumarinta u qaabilsan dalka Japan isagoo kala hadlay in ay magaalada Muqdisho ka saacidaan dhinaca dhismaha wadooyinka iyo bulaacadaha iyo arrimo kale gudoomiyaha ayaa markii uu shirku soo idlaaday waxa uu ka warbixiyay shirarkii uu kaga qayb galay intii uu ku sugnaa dalka Japan maalmahan waxaan ku sugneen dalkan Japan oo magaalada madaxda Tokyo iyo magaalada labaad ee Osaka oo labadaba aan tagnay ujeedaduna waa shir caalami ah oo bangiga adduunka soo qaban qaabiyay oo lagu horumarinayo caasimadaha adduunka halkaas oo wadamo badan ay ka soo qayb galeen oo isku weydaarsanay aqoonta iyo sida wadan walba ama caasimad walba ay uga shaqeynayaan dawladaha hoose waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in kulamadaas ay ahaayeen kulamo aad iyo aad muhiim u ah isla markaana ujeedadu ay ahayd halkan u nimid inaan caasimadda iyo horumarkeedii aan geed dheer geed gaaban u fulno sidoo kale maanta waxaan kulan gaar ah la qaadanay hay'adda xiriirka caalamiga ee dalkan Japan loo yaqaan JICA sulinteeda ugu sarsaraysay waxaan ka wada hadalnay sidii Japan ay u xoojin lahaayeen iskaashiga xiriirka dalka Soomaaliya guud ahaan anagoo warbixin ka siinay xaaladda dalka iyo horumarka ballaaran ee lagu talaabsaday labadii sano ee barkii la soo dhaafay waxaan kaloo isla markaa warbixin ka siinay caasimadda Muqdisho iyo horumarka ay maalmo ku talaabsanayso iyo qorshayaasha aan damacsannahay in dalka Japan laga saacido ay ka mid tahay anagoo diyaarinay qorshihii guud ama master plan-ka wax loo yaqaanay bulaacadaha iyo wadooyinka isla markaana rajaynayno in dhawaan aan bilaabi doono qorshahaas hirgelintiisii marka kulamadii aan bariyahan u joognay halkan bangiga adduunka iyo shirka caalamiga ah iyo kii gaarka ahaaba maanta waxaan kuwa muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkaba waxaan rajaynaynaa in caasimadda Muqdisho ay sidii bartilmaameed ku soo noqoto caasimadaha adduunka la tartami karta sidoo kale waxaan ka baranay dalkan Japan oo magaalada Tokyo iyo Osaka sida ay dadkoodu runtii ugu dadaaleen horumarkaasna aan niyadda ku hayno mar walba in shacabka Soomaaliyeed ay gaari doonaan rajo weyn baan ka qabnaa maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay ka hadleen sida magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka gobolka Banaadir ay uga dhici karto doorasho qof iyo cod ah markii la gaaro doorashada soo socota shirka ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyay kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Marwo Xaliimo Ismaaciil Yarey haddaba shirka markii uu soo idlaaday waxaa faahfaahin naga siiyay waxyaabihii laga hadlay xogayaha guddiga doorashooyinka qaranka Cabdirasaaq Bashiir Maxamed runtii wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan oo ay isugu yimaadeen hogaankii gobolka dhinaca maamulka hadday ahayto aqoonyahankii iyo maamulka gobolka gudoomiyaasha gobolada iyo xubno ka socday guddiga doorashooyinka waxaad saa la socotaba guddiga doorashooyinka ku howlan yahay in dalka laga hirgeliyo doorasho 2020 sanadkaas runtii aad u dhow waxaa sanadkan hadda 2019 ah u qorshaysan guddiga doorashooyinka
in uu qabto dhammaan dalka howlo ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaha, wacyigelinta codbixiyaha, diiwaangelinta axsaabta siyaasadda. waxaa laga maarmaana markaa maamulka iyo guddiga doorashooyinka iyo mas-uuliyiintu inay ka tashadaan. kulankan wuxuu ka mid ahaa kulamada looga tashanayo sidii loo qaban lahaa howlaha hadda aan ku sheegay oo ay ugu horeyso hawsha diiwaangelinta codbixiyaha. hawsha diiwaangelinta codbixiyaha ilaa 4 waxay leedahay wejiga u horeeya waxa weeyaan inaad heshid xagee baan dadka ku diiwaangelin karaa. waxaa ku xiga wejiga labaad oo ah meesha dadka aan ku diiwaangelinayna ma tahay meel habboon oo ku habboon meel dad lagu diiwaangeliyo. waxaana ku xigi doona wacyigelintii iyo diiwaangelintii ay ka xigi doonto. maxaad isla meel dhigteen maamulka gobolka Banaadir maadaama aad maanta ugu timaadeen aqalka dowladda hoose oo la qaadateen shir dheer? qorshaha waxqabadka u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaha ayaa ugu muhiimsan inaan soo bandhigno oo marka ayaguna ay su'aalo naga weydiiyaan. waxay su'aalo badan naga weydiiyeen habka loo maraayo diiwaangelinta codbixiyaha. waxaan isla qaadanay oo isla fahmnay qorshe hawleedkii aan ku wada howlgeli lahayn labada asbuuc oo soo socda oo ay ugu horeyso inaan isla astayno ama calaamadino ama goobayno meelaha dadka lagu diiwaangelinayo annagoo kaashanayna maamulka gobolka gaar ahaan guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka iyo howlwadeenno ka socda iyaga. waxaanu isku waafaqnay oo isla garanay oo isku fahmnay qorsheynta sidaan u wada shaqayn lahayn. gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa waxa uu soo xiray toddobaadkan tartan loo qabtay dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir. tartankaasi waxaa ku guuleysatay Leyla Xasan Yuusuf oo ka socotay degmada Kaxda. haddaba gudoomiye Tuulax ayaa waxa uu ka hadlay ahmiyadda tartankan iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed faa'iidada uu u leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها دقمدا عمر ججب وبري عبد العزيز قدوميها وكرا نشبه كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي شرف ويني أنا كسو غيب قالوا ما أنت هالكن تتكان ومالين كي لباس وأنا كسو غيب قالوا انتهي وحن كجرنا بشي لليرada يمالي وقارك على اليرada الصوماليات وأوجه هتعلنا يا جوديجا سيد وناكسن أو أي أكل فلان أما أي معركة ترتمياش وحق صورة وحن أركي صورة إيو معركة على مرة كجير دنيرة سنتينا وحال كان كسب حي دنيرة بدن أو كجير أقون أما حفظ جارا إني بناك كينان صورة لما أنتي وحكم وقتي أنتي كل جواب وناكسن هي أنتي ترتمتي sida hadda halkan ka muuqata waxaa la sawiray SYL 13 dhalinyarada oo gacanta uu ku sawiray yarkii sawiray marka halkan waxaa ku sawiran isxilqaan dhalinyaradii oo ka qayb galaysa isxilqaan runtii dhalinyaradan hadda halkan wax ku sawiray xirfadooda waxay la joogeen guryaha marka fursaday maanta u heleen inay halkan yimaadaan ku soo bandhigaan tartankana cid gaar ah guuleysatay ma jirtay qof walba oo ka qayb galay waxay u ahayd fursad oo aqoonta iyo wax hibada gaarka Ilaahay u siiyay ku jirta inuu banaanka la yimaado. marka waa ku dhiirigelinaynaa waa markii ugu horeysay oo gobolka Banaadir ururkiisa dhalinyarada uu tartankan qabto. waana rajeynaa sanad walba inaan sidaan gudoomiye u sii wadi doono guud ahaan degmooyinka tartanka ka qayb galay oo wada hambalyeena kulligii waa guuleysateen. dhalinyarada Soomaaliyeed waxay haystaan runtii fursad ka fiican fursadii ay SYL haysatay. annaga hadda kaliya xusitaan kuma koobayno waxaan rabnaa inaan dib taariikhda u akhrino SYL fursadii ay haysatay fursad ka fiican haysana culayskii ay qabeen mid ka adagna hadda annaga ku jirna marka labadaasaan rabnaa inaan isku barbar dhigno dhalinyaro ahaan weliba dhalinyaradu maanta fursad waxay haysataa inteena hadda halkan fadhida xelalka haysa kulli dhalinyaro waay waa gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha kaleba iyo madaxda dawladda hadda xelalka ugu sarreeya waxa ka hay waa dhalinyaro waay marka dawladda hadda joogto uga mahad celinaynaa fursadda dhalinyarada ay siisay ayagoon qabiilkii iyo culaysyo kale oo aysan mari karin marina
waxay u tahay dhalinyarada maanta fursaday u tahay marka fursaddaas waxaan u baahannahay haddaan dhalinyarada nahay inaan ka faa'iidaysano oo uga faa'iidaysano mid aqooneed iyo inaan dalka dib u dhiskiisa iyo difaaciisaba aan ka qayb qaadano dhinaca kale markii loo fiiriyo dhalinyaro kale oo runtii la qalday oo fikir khaldan aaminsan baa dalkii dhibaato ku haya oo maalin walba aa arkaysaan masiibada dhacaysa annaga waxaan ku jirnaa dadaal laakiin waxaan u baahannahay dhalinyaradaas la qalday walaalaheena inaan wixii aan soo celin karna aan soo celinno wixii aan iska celin karnana inaan ka qayb galno iska celinteeda waayo maalin walba hooyo Soomaaliyeed iyo carruur Soomaaliyeed dhiiggoodii la daadinayo ma fiirsan karno aad iyo aad aan ugu hambalyeynaa ururka dhalinyarada iyo dhammaan dhalinyaradii tartankan ka qayb gashay gaar ahaan gabadhii halkan gabayga khayrada badan ka soo jeedisay iyo maamulka degmada Xamar Jajab iyo guddigii qabanqaabada kulligii waa maasantihiin waxaan idin rajeynayaa guul. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. toddobaadkan shirka siyaasadda tubaha dowladda hoose ee Xamar waxaa looga hadlay qabyo qoraalka xeerka maareynta qashinka sida warkan uu noogu faahfaahinayo Cabdinaasir Xirsi Iidle. maamulka gobolka Banaadir oo toddobaadkii marka aan heesada horumarinta siyaasadda tubaha dowladda hoose ee Xamar ayaa toddobaadkan kulankoodii diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin soo bandhigista xeerka nadaafadda dowladda hoose ee Xamar, dardargelinta nalaynta caasimadda iyo xog waraysi ku aadan saameynta uu geystay roobkii ka curtay caasimadda Muqdisho. shirka oo shir gudoominaya kusimaha duqa magaalada Muqdisho Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo la taliyaal Cabduqaadir Muxudiin Dalxa agaasimaha waaxda kormeerka iyo waxqabadka maamulka gobolka Banaadir ayaa shirka kadib si faahfaahsan uga warbixiyay qodobada la isla meel dhigay. bismillah shirka maanta waxyaabaha looga dooday ajendayaal aad muhiim u ah magaalada iyo dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir waxaa looga hadlay oo sharci yaqaanka maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose soo bandhigay qabyo qoraalka xeerka maareynta qashinka ee magaalada. sidaan wada ognahay dhibaato badan ayaa ka jirta arrimaha maareynta qashinka magaalada iyadoo dadaalo badan ay socdaan oo ku aadan sidii magaaladan looga dhigi lahaa magaalo biliceeda aad u sareyso. si marka taa loo gaaro waxaa laga maarmaan noqotay in la diyaarsho xeer lagu maareeyo qashinka magaalada oo leh waajibaad iyo shaqooyin muhiim u ah dhammaan dadka ku howlan howlaha maareynta qashinka magaalada haday tahay sida dowladda hoose iyo marka shirkadaha gaarka arintaas loogu dhiibayo. qabyo qoraalkii xeerkaas ayaa la soo bandhigay oo ka kooban ilaa 16 qodob oo aad u waaweyn waxaana go'aan lagu gaaray in ka qaybgalayaasha loo qaybiyo shirka dambe ee tubta arbacadana lagu soo bandhigo sidaasna uu xeerkaasi si rasmi u saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho si uu markaa u dhaqan galo. sidoo kale waxaa shirka lagu soo bandhigay habraac gaar ah ee loo goleeyahay in lagu xiriiriyo mashaariicda gaarka ah ee magaalada Muqdisho ka socoto ama gobolka Banaadir oo ay markaa wadaan hay'adaha aan dawliga ahayn haday ahaan kuwa caalami ah iyo kuwa maxalli ah. waxa muhiimadda ahaan hoosta laga xariiqay inay aad muhiim u tahay in mashaariicda magaalada ka socoto maamulka gobolka Banaadir xiriiriyo lahaanshaheeda iyo isla xisaabtankeeda iyo dabagalkeedana markaa uu sameeyo si loo xaqiijiyo in mashaariicdaasi deeqaha ah haday aan lahayn kuwa samafaleed iyo kuwa horumarineedba ay ujeedkii laga lahaana la gaaray dadkiina marka ay gaareen mas'uuliyadda ah in la dabagalo oo la isla xisaabtamana ay dawladdu leedahay iyadoo wada shaqayn dhow la yeelan doono hay'adaha mashaariicdaasi fuliyo. waxa marka aad looga dooday habraacaasi ku aadan madasha xiriirinta mashaariicda oo dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu sameyn doono. waxa go'aan lagu gaaray marka in iyadana sidoo kale loo gudbiyo in talooyin laga soo aruuriyo qaybaha gobolka uu ka kooban yahay arbacada dambana marka heer gobol ahaan la isla ogolaado la ansixiyo iyadoo marka u gudbi doonto in hay'adaha aan dawliga ahayn kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga marka laga tashan doono markii la isla gartana marka la hirgelin doono sidii loo xiriirin lahaa marka mashaariicda. sidoo kale waxaa la soo bandhigay horumaradii marka laga gaaray mashruuca dib u dhiska magaalada oo ay dowladda hoose Muqdisho wado oo lagu dhisayo wadooyinka la yiraahdo wadooyinka xaafadaha ama faraca ah ee la saarayo interloga taasoo laga dhisayo ilaa 7 degmo oo degmadii marka laga dhisayo 2 kilomitir oo wadajir isku noqonaysa marka 14 kilomitir oo wadooyin interloga magaalada Muqdisho sanadkan ay dowladda hoose Muqdisho ka sameynayso oo u dhawaan duqa magaalada Muqdisho dhagax dhigay si muunadna uga dhagax dhigay degmada Xamar Jajab. iyadana waxaa la soo bandhigay marka horumaradii laga sameeyay wadooyinkaas ayaa la soo bandhigay iyo sidoo mashruuca u socon doono
iyo sida loo xiriirin doono ama loo dabageli doono in markaa mashruuca sidii loogu talagalay tay ahaan iyo waqti ahaanba markaa uu ku fulo ugu dambeyn waxaa laga hadlay waxyaabo dheeri ah waxay waaxda qaabishan qorsheynta magaalada injineeriyada ka warbixisay horumaradii markaa maamulka gobolka banaadir uu ka sameeyey diyaarintii iyo dhisidii buleecadaha biyo qabadka magaalada muqdisho oo dadka magaalada muqdisho ay wada arkeen lagu diirsaday roobabkii daana markaa aysan saameyn geysan oo ah markii ugu horeysay in buleecadihiina markaa ay shaqeeyaan biyihiina qaadaan biyo qabadkiina sidii loogu talagalay markaa uu shaqeeyo oo aysan dhicin inay wada u xirmato markaa inay biyo galeen ayaa laga warbixiyey sidoo kale waxaa laga warbixiyey dib u dhiska ku socdo garoomada waaweyn oo maamulka gobolka banaadir fulinaya sida garoonka kubadda cagta ee qoob doore sidaasoo kale garoonka kubadda cagta istaadi muqdisho oo markaa isagana bilowday waxaa ugu dambeyn warbixin laga bixiyey arrinta ku aadan nalaynta magaalada oo ahmiyad gaar u leh maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose waxaa isbuucan dhalanaya toos u bilaaban doono nalgelinta ama nalaynta degmooyinka kaxda iyo dayniile iyadoo dayactiradii lagu soo dhameeyey kuwa magaalada bartamaheeda maro oo la wada arkayay inay aad loo dayactiray ifeenne isbuucyada soo socdana markaa degmooyinka laga bilaabi doono nalgelintaas dowladda hoose ay ku bilaabi doonto waana qayb ka mid ah markaasi istiraatiijiyada ku aadan nalaynta magaalada gaar ahaan in nalaynta markaa lagu fidiyo degmooyinka foora ah ee magaalada muqdisho shirarka tubaha ayaa dulucdoodu tahay isla xisaabtan iyo si loo xaqiijin lahaa in la gaaro higsiga horumarka caasimadda muqdisho aad baad mahadsantahay cabdinaasir iidle guud ahaana warkii idinkaga imaanayay warbaahinta codka gobolka banaadir xilligan waa naga intaa